بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كله wanaagsan halkan waa warbaahinta haye kamid meel soo joogteen waxay leenahay waqtiga hadii wacnaado daawadayaal marka lagu soo dhawaada warbaahinta haye kamid waxaan oo wanaagsan kuna soo dhawaada warbaahinada aan ku talagalnay halkan waa warbaahinta haye kamid xubintaan ku soo qaadanayna warbaahinteena waxay tahay taariikhyaal gaaray jasiirad ku taala Gariiga xilli ragga Soomaaliyeed loo xiray taariibinta muhaajiriintaasi 79 taariikhyaal la socotay dooni yar ayaa waxay hadii la soo laafay si nabada ku gaaray jasiiradda Gofdos oo ku taala koonfurta dalka Gariiga maamulayaasha dalkaasi waxay shalayeen ay sheegeen inay gacanta ku leeyihiin laba qof oo kamid ah muhaajiriinta soo gaaray jasiiraddaasi hadal qoraal ku soo baxay taliska ciidanka ilaalada xeebaha dalkaasi waxay labada nin ee la qabtay ku sheegeen muwaadiniin Soomaali ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya waa sida ugu daabacay shabakada wararka ee aan ka soo xignay dhacdadan labada nin ee Soomaaliga ee la qabtay ee dad lagu kala sheegay 3 jir iyo 9 jir kuwaas oo lagu eeday inay muqallasiin ahaayeen isla markaana ay naaquudiyaalka ayeen doonadaasi ka soo shaacay xeebaha magaalada Tobruk ee dalka Liibiya ayaa waxaa la sheegay in doonadaasi ka xinayeen ilaa ay ka soo gaareen jasiiradda Gofdos ee dhanka koonfureed kaga toosan jasiiradda kale ee Crete ee koonfurta dalka Gariiga badeedka u dhaxeeya magaalada Tobruk ee dalka Liibiya ilaa jasiiradda Gofdos ee koonfurta Gariiga waxaa la sheegay inay qatar sare leedahay si looga soo gudbo badda Mediterranean-ka shabakadaha taariibinta muhaajiriinta ee muqallasiinta loo yaqaan waxay kordhiyeen isticmaalka marinkaasi xilli uu sii kordhayo cadaadiska marinada kale ee taariibka sida laga soo xigtay xogta qaramada midoobay ku dhawaad 49,000 oo qof ayaa sifo aan sharci ahayn ku soo galay dalka Gariiga sanadkii la soo dhaafay 2025 ku dhawaad 42,000 oo qof oo kamid dadkaasi waxay ka soo galeen dhanka badda halka celcelisaan kala bar dadkaasi ay ka soo socdaaleen ama ay ka soo taariibeen xeebaha dalkaasi halka inta soo hartana Gariiga ay ka soo gudbeen dhulka xuduudka ee waqooyiga bari ee Gariiga la leeyihiin dalka Turkiga si kastaba maamulayaasha dalka Gariiga waxay weli wadaan ilaalinta muhaajiriinta ka soo qulqulaya dhanka bariga badda Mediterranean-ka xilli ay kordhayaan taariikhyaasha ka soo socdaala xeebaha dalka Liibiya daawadayaal xubinteeda ku talagalay waa nagita ilaa kulan kale waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa warbaahinta hay'adda media nabaday